kulanti wacan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal kale oo cusub oo xiiso badan barnaamijka adiga ayaa u qalma anta kafu soo dhawaada waan idin soo dhaweynaynaa waxaan eegi doonaa muuqaalkan iyo maanta waxa uu ku saabsan yahay inta muuqaalku socdo qeybaha uu ka baxayo waxaad nagula wadaagi doontaa aragtidaada. طلبنا من ضيفة اليوم حضور اجتماع بالمجمع ولكن رتبنا لها شيء أكبر. نبتدي بلوحة الأبطال. maanta waxaa marti ku ah Marwa Amaal waxa la soo dhigay hadda astaanta loogu talagalay ama in loogu muujiyo dadka geesiyaasha. boorsooyin ay ku sawiran yihiin magaceedii iyo sidoo kale sawiradeedii ayaa la wada. الحين البالونات. buufinadii soo bandhiga ayaa la yiri. داخل الحين عربات التسوق. gawaaridii lagu dukaamaysanayay. البنات. النداء. أعزائنا الزوار، ننوه عن وجود شخصية معطاءة بيننا الآن، السيدة آمال، خصصت جزء كبير من وقتها ومالها للاهتمام. daawadayaal maanta martida waa Marwa Amaal oo iyadu waqtigeeda iyo nolosheeda iyo lacagteedaba gelisay sidii dadka baahiyaha gaarka qaba ay nolol ay ugu abuuri lahayd ayna u dhiirigelin lahayd. dadka ka faa'iideystay ganacsiyadii ay abuurtay gabadhan ayaa ka mid ah. wiilkana ka mid ah oo isagana dhahayo waa qof aad u wanaagsan. من الشخصيات اللي مطابقة المثل اللي لا تطعم السمكة. waxa uu leeyahay waa dadka ku dayashada mudan. waraahdeeda waxaa ka mid ahaa في دعمها malaaha iska soo daban laakiin baro sida loo dabto. تقويهم وتساعدهم على أساس أن يستمرون في حياتهم. dadka waxa ay ugu baaqi jirtay si noloshooda ay u wataan in xirfado ay sameystaan ayna ku dhiirigeliso. فكرته أنه هو يسوي كتاب عن نفسه. حكيت لها أنا كان عندي حلم waxaan uga sheekeeyey inaan leeyahay riyo ayuu leeyahay. مشروع سويت لي waxa ii samaysay mashruuc waxa ay iga qortay nolosheedii buug وأجرت لي waxa ay ijaartay apartment ama guri وعطتني waxa ay siisay سيارة بعد gaari ayay ii iibisay. ما قصرت وياي وأشكرها من aad ayaan ugu mahadcelinayaa mahadcelin qalbiga ka soo goda nolosheedii ayay bedeshay ayuu leeyahay. My son Yusuf is a special need. She came to Yusuf's office and she saw Yusuf working on a laptop, and then she said, "It's very hard to doing this work on laptop. Why should not you go to the PCU?" waxay aragtay She said, "I will give a gift for Yusuf Yusuf," and oo she isagu donated the computer PCU isticmaalaya. for Yusuf, and Yusuf was waxay u very soo happy iibisay to work on computer it. laptop ah. Saw waxa uu Yusuf u ahaa qof si aad u jecel sawirada in uu qaado si aad ayuu ugu fiicnaa. So Yusuf photography day by day going higher and good. كنت قبل سليمة ما فيني إعاقة. sanado ka hor aniga ma ahayn qof naafa ah balse shil ayaan galay. لازم أحد يطلعني من هالأزمة يعني. شفت السادة آمال. Ustaad Amaal ayaan la kulmay waxa ay siisay dhiirigelin awood maxaa yeelay أعدي هالمرحلة. waxay ii diyaarisay in aan marxaladan ka gudbo oo aan marxalad kale aan u gudbo noloshayda wax ka bedeshay taa oo aan
ku xanaanaysanayo cunugayga iyo gabadhayda. فالفضل لها أولا وآخرا. iyada ayaa 1 ilaa 2 ku maasan, boqolkiiba 80 ayay waxa waa nolosheeda aad u bedeshay. Another person, I go a lot of places or a lot of country to work, but I found also a good employer, but she is the best. She's very supportive, and I love her very much, and I want to tell her thank you for everything. سيدة آمال، شكرا لك على هذه الخدمات، وفرتين علينا كثير من الجهد. أسأل الله لك التوفيق وفي ميزان حسناتك. I don't have words to say I think thank you is very, ma aqaan ayay leedahay wax ka badan oo mahadsanid aan ku dhihi karo. How we feel, what you are in our heart. أستاذ آمال، نقول جزاك الله خير فيما عملتيه، ونسأل دائما الله سبحانه وتعالى أن يمدك بالصحة والعافية، وأن يجعل ما عملتيه في ميزان حسناتك. أنا أحبك وايد وأشكرك من كل قلبي أنك ساعدتيني ووقفتي وياي. مشكورة أستاذة آمال، خليتي عندي العزيمة والقوة والصبر. Ustaad Amaal ayaa loo mahadcelinayaa. waxaad igu garab siisay in nolosheeda wax ka bedelo, caruurteedana aan xanaanayso ay leedahay. إنجازاتك. daawadayaal waxaa la soo gaaray waqtigii la abaalmarin lahaa Marwo Amaal. fadlan wixii aragtidaada ah qeybaha muuqaalkan aad ka daawanayso noogu dhaaf. صراحة يعني أنا وايد انبهرت. أولا ما شفت البنر نازل بصورتي وناس تمشي بشياس وما كنت عارفة شو markii ugu horeysay waxaan u maleynayay barankii ama wax kaftana oo laygu sameynayo, balse arrintan oo kale ma u maleynin inay dhacayso. laakiin dareen wanaagsan ayuu ahaa inaan arko dhacdo noocan oo kale oo aad ii samayseen. keliyeyga inaysan igu ekaan ayaan rajaynayaa oo dhammaan kuwa mudanba in la abaal mariyo. أستاذ آمال أنت كفو. أستاذ آمال، أنت كفو. آمال أنت كفو. ماما آمال أنت كفو. آمال كان لها منظورها الخاص للعمل الخيري. waagaag dhegeystayaal, daawadayaal, halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkeenii maanta. fadlan wixii aragtidaada nala wadaag. آمال أنت كفو.